السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad hore u aragtay waxtarka liin dhanaanta iyo geedka kurkumka ee aynu huruudda u naqaano waxaa kaloo jirta in la isku daro labadooda ayaa iyaduna ah arrin kale oo muhiimadeeda leh sida lagu sheegay daraasad laga sameeyay jaamacadda California qaybteeda caafimaadka ilkaha waxaa lagu sheegay in maadada ku jirta huruudda ee kurkumin ay la dagaalanta igfashanka taas darteedna marka lagu daro liin dhanaanta ay sii xoogaysanayso inay ka hortagaan igfashanka dhinaca kalena iyadoo cabitaanka biyuhu ay qayb weyn ka yihiin caafimaadka jidhkeena haddana haddii aad tahay qof aan biyaha u cabin sidii loogu talagalay waxaa kuu fiican inaad isku darto kurkumka ama huruudda iyo liin dhanaanta kadibna aad cabto xilliga quraacda sidoo kalena isku daritaanka labadan shay oo la isticmaalaa waxay hoos u dhigaan cilladaha ku yimaada dheefshiidka iyo guud ahaanba caloosha waxaanay wanaajiyaan shaqada wadnaha iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga qaada waxaanay u fiican yihiin maqaarka sare ee jidhka iyagoo la dagaalama bakteeriyada haddaba waxaad isugu dari kartaa labadan shay inaad koob ay ku jiraan biyo diirani aad ku darta malqaacad yar badhkeed oo ah biyaha aad ka tuujisay liin dhanaanta kadibna aad ku sii darto wax yar oo malaba haddana aad ku sii darta malqaacad yar badhkeed oo huruuda kadibna aad cabto xilliga quraacda aad baad u mahadsantihiin متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له